injineer Abshir Muuse Siciid oo ahaa shakhsi ku weyn bulshada Soomaaliyeed sidoo kalena kamid ahaa aasaasiyaashii Puntland ayaa ku dhintay dalka Ingiriiska waxaana maanta aas qaran lagu sameeyay degmada Qardho ee gobolka Karkaar. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa si wada jir ah uga tacsiyeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay injineer Abshir Muuse Siciid. Inna ilaahi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii Firdawsa geeyo Abshir Muuse oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska haddana lagu aasayo magaalada Qardho. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistii janno ka waraabiyo eelkiisii iyo qaraabadii iyo dadka uu ka tagana samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland. waxaan uga tacsiyeenayaa geeridaas ku timid Abshir Muuse oo in muddo xanuunsanaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii geeyo subxaanahu wa ta'aala. annagu waa ka gaari weynaa inaan tagno laakiin haddaanu nahay shacabka ku dhaqan degmada Buurtinle waxaan ugu tacsiyeenaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadii ka waraabiyo. raaji'uun ilaahay ha u naxariiso Generaal Abshir Muuse wuxuu runtii nin odaya oo bulshada iyo mujtamaca dhexdiisa sumcad ku leh. Generaal buu ahaa, aqoon-yahan buu ahaa, ganacsado ahaa, nin wuxuu ahaa Puntland markii tirarka loo taagayay dhismaheedii qayb weyn ka qaatay. sida la socotaan waxaa ninkii ku dhawaaqay magaca la yaab Puntland asagoo odayaasha kale iyo kulli ay ka wada tashanayeen. wuxuu ahaa Soomaaliya nin u soo shaqeeyay oo shirkadii xoog karamtada si fiigisi taariikhdiisa dadka aad u hayay sheegi doona laakiin nin halbowle ah buu ahaa. ilaahay janno iyo raxmad ha siiyo. waxaan dhammaan uga tacsiyeenaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland geerida ku timid Generaal Abshir Muuse oo maantay lagu aasayo Qardho kuna dhintay dalka Ingiriiska. waxaan leenahay ilaahay Soomaali iyo reer Puntland iyo qaraabada gaarkaayba ilaahay ha ka siiyo samir iyo iimaan. waxaan tacsi u direynaa Abshir Muuse Siciid oo kamid ahaa aasaasiyaashii iyo haldoorkii reer Puntland. qofkuna hadduu dhinto oo dalka iyo dadka u soo shaqeeyay waxa waajiba dadka islaamka oo dhan inay u duceeyaan. annagu u duceynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto jannadina Firdawsana ka waraabiyo. kullu nafsin daaqatul mawt naf walba waxay geerida dhadhaminaysaa. waxaan ka tacsiyeynaa geerida ku timid Generaal Abshir Muuse. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabrigiisa ha dhigo rawdo min riyaadil janna. wala ka hormaray qof walba uu dhimanayaa nin odaya oo soo shaqeeyay buu ahaa. marka haddaan nahay shacabka reer Buurtinle waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto. wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan rabaa halkan inaan tacsi uga dirno Generaal Abshir Muuse Siciid oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska maantana lagu aasayo gobolka Karkaar degmadiisa Qardho. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay ha u naxariisto. injineer Abshir Muuse Siciid ayaa kamid ahaa dadkii farogtiriska ahaa ee ka noolaa dadkii aasaasay Puntland wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqa ereyga Puntland wuxuuna kamid ahaa dadka taariikhda weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle.